soo dhawaada dhammaantiin kabtan jaax diyaaradda wax badan maanta igu soo taagarayseen waa diyaaraddii shilkeedu muqdisho ka dhacay. Shil yar buu ahaa. Waxay ka baxaysay muqdisho baydhabo u socotay laakiin muqdisho kusoo laabatay. Marka koowaad diyaaraddan maxay tahay? Diyaaraddan waxaa sameeyay company la dhaho Bombardier Dash 8 oo Canada laga leeyahay. 26 sano jirtay. Waxaa diyaaraddan soo iibsaday Scandinavian Airlines. Ayagaa haysteen muddo dhowr iyo 10 sano ah. muddo hadda 10 sano ka hor baa waxaa la soo wareegay company Air Services la dhaho oo Kenya ku yaalo. Companygaas marna ayaga haysteen marna waxay ka ijaari jireen oo lease u siin jireen United Nations. Hadda marka United Nations baa lease diyaaradda u haystay oo u kireysnayd. Marka sida idin sheegay diyaaraddan muqdisho ka baxday baydhabo u socotay laakiin airportkii kusoo laabatay. Sida waraaqdan ugu jeedin waraaqdan waxaa soo saaray company la dhaho Fafari LLC waa companyga muqdisho airportkeeda dhan raangareeya waa company Turki laga leeyahay. Companyga marka sida uu sheegay diyaaraddan markii ahayd adiga 2 duhurnimo bay muqdisho kusoo laabatay. Shilku marka muxuu ahaa? Shilku wuxuu ahaa diyaaraddan aad bayna caan ugu tahay Dash 8ka badanaa lugaheeda problemo badan bay leeyihiin qaasatan 10 sano u dambeysay. Hatta Scandinavian Airlines dhowr shil bay ku galeen lugaha dartiis. Caan bay u tahay dhibaatooyin lugaheeda ku saabsan. Tan laftigeeda markii ay soo degaysay sida videoga ka aragteen lugihii koobaad nose gearka ama lugta koobaad oo sanka hore diyaaradda uga taala ma soo bixin. Laakiin ilaan meesha taayir baa loogu talagalay oo diyaaradda wado taayirkii malahan wuu soo bixi waayay. Marka sababtaas wuxuu shilka wax ku dhintayna malahan alxamdulillah dad wax ku gaareenna malahan sida ay sheegayaan Fafari LLC companyga muqdisho airportkeeda haysto.